baqaar lagu iibiyo qudaarta oo lacag ka dhigaya in gudihiisa la galo si loo soo arko waxyaabaha yaala baqaarkan. intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato fadlan nagu soo biira mahadsanid. baqaar lagu iibiyo miraha magaalada oo ku yaala magaalada Barcelona ee dalka Spain ayaa milkiilaha baqaarkaasi waxa uu sameeyay fal aad loola yaabo kadib markii uu lacag ka dhigay gudaha in loo galo baqaarkaasi. waxa uuna sheegay in dadka doonaya in ay gudaha u galaan baqaarkan in ay iska bixiyaan lacago si ay u soo arkaan waxyaabaha meesha lagu hayo. irida baqaarka ayaa la dhigay boor ay ku qoran tahay lacag dhan $5.60 oo gudaha loogu galayo baqaarkan. sababta waxa uu ku sheegay milkiilahan in dadka badan ee halkan yimaada ay yihiin dalxiisayaal ayna halkan u yimaadaan in ay arkaan alaabaha iyo waxyaabaha kale ee qadiimiga ah ee yaala baqaarkan. waxa uuna sheegay in mararka qaar ay dadka iska baxaan iyaga oo aan salaamin mas'uuliyiinta iyo dadka kale ee halkaasi ku sugan. sidaas daraadeed ayuu milkiilaha baqaarkan waxa uu ugu dhigay in gudihiisa la soo galo lacag maadaama dadka ugu badan ee halkan imaanaya ay yihiin dalxiisayaal ayuu yiri. waxa ay sameynayaan in ay ku galaan sawiro sidoo kalena waxa ay sameynayaan in ay sawiro ka qaadaan alaabaha qadiimiga ah ee halkan yaala ayuu yiri milkiilaha baqaarkaasi. aad baa lagu kala aragti duwan yahay fikradan uu soo jeediyay milkiilaha baqaarkan waxayna isaga u tahay fursad dhaqaale uu ku sameyn karo maadaama dalxiisayaasha imaanaya baqaarkiisa ay ku qasban yihiin in ay jeebka gacanta geliyaan si ay gudaha ugu galaan baqaarkan ay ku kaydsan yihiin waxyaabaha badan ee qadiimiga ah.